السلام عليكم ورحمة الله. دمان جنرالka Munir Marsi ku xiran soo dhawaada waa saaxiibkeen Munir. Maanta waxaan rabaa inaan mowduuc cusub idin soo gudbiyo. Wuxuu noqon doonaa waa ogtihiin dunida saddexdan bil ama saddexda bil ugu dambeysay ama sanadkan cusub waxaa dhibaato weyn ku hayay cudurka coronavirus COVID-19. Caabuqan oo ah caabuq halis ku noqday dunida caalamka dhan wax ka qaban waay. Ayaan waxaan rabaa dhacdooyin cajiib ah ee laga soo diiwaan geliyay inaan idin la wadaago. Dhacdooyinkaas waxay noqonayaan mid ugu horeyso in cudurka cudurka waxay dhahaan badanaa wuxuu ku dhacaa dadka 40 ama 50 ama 60 mar walba da'daada kor u kacdo halista ugu jirtid cudurkan ama caabuqan coronavirus way sii badanaysaa. Laakiin waxaa la arkay ilmo yar oo 13 jir ah oo cudurka ku dhacay kadibna uu dhintay. taas waa dhacdo koowaad. Dhacdo labaad waxay noqonaysaa naag weyn oo Iran u dhalatay oo 103 sano jirto oo ayadana ka soo bogsootay cudurka ama caabuqa coronavirus. Dadku waxay dhahayeen waxyaha caafimaadka dunida WHO waxay dhahayeen cudurka waxa u dhimata dadka waaweyn ayaa badanaa u dilaa u soo ritaa. Laakiin hooyadaas 103 sano jirta way ka badbaaday way ka caafimaaday ayadoo caafimaad qabto ay haddana gurigeeda ku nooshahay. sidoo kale waxaa jirta dhacdooyinkii laga diiwaan geliyay cudurka ama caabuqa coronavirus waxaa ka mid ah in hooyo Talyaani ah ama naag weyn ama waayeel oo Talyaani ah oo 90 jir ah inay ka badbaaday cudurka coronavirus. Caabuqa Ilaahay wuu ka badbaadiyay. Kulay waxaa ogtihiin in Talyaaniga uu aad dhibaato u hayo oo ilaa 7,000 ku dhow ama 6,000 qof uu ka dilay. maalin walbana ugu yaraan 500 qof uu ka dilaayo isbuucan hadda lagu jiro ama 600 800 maalintii u dilaa. Marka dhacdooyinkaas cajiibka ah ayaa laga soo diiwaan geliyay cudurka ama caabuqa coronavirus. insha Allah waxaan rajeynayaa in Ilaahay naga badbaadiyo. Kulay Soomaaliya aan jooga haddii aad Europe joogto ama meel kale stay home guriga joog gacmaha dhaqo meelaha oo dadka ugu badan yahay tagin ilaa daruur haday jirto. haddii calaamadaha cudurka isku aragtid oo aan videoga hore ugu soo sheekeeyay videoyada hore isbitaalada tag ama waxyaha caafimaadka kulay dunida dhan way baraarugsan tahay oo lagu imaanaya. insha Allah waa maasantihiin muuqaalka inaan ka heshayna rajeyna like saara soo dhawaada. Assalaamu calaykum.